xogta dahsoon ee aan helnay ayaa daaha ka rogaysa in xalay xaalad kacsanaan iyo cabsi ah ay soo wajahday madaxtooyada dalka kadib markii kooxda damjadiid ay shaashad weyn kala socdeen war murtiyeedkii ka soo baxay shirkii Kismaayo, taasoo keentay in degdeg la isugu yeero saraakiisha ugu sarraysa iyo xubnaha ugu dhow madaxweynaha, waxaana halkaas ka dhacay kulan xasaasi ah oo qaatay saacado badan oo saqbarkii xalay ah, iyadoo la dejinayo qorshayaal halis ah oo dalka looga abuurayo qalalaasi siyaasadeed iyo xasilooni darro hor leh. Go'aankii ugu horreeyey ee ka soo baxay kulankaas mugdiga ah ayaa ah in la dedejiyo doorashada ay shacabku u bixiyeen dhac iyo dil ee ka socota Muqdisho, iyadoo la amray in waddooyinka caasimadda la xiro laga bilaabo habeenka 24 bisha Diseembar ilaa 25 bisha Diseembar, taasoo ujeedkeedu yahay in shacabka lagu caburiyo guryahooda si boobka doorashada loo meel mariyo, iyadoo aan loo aabayeelin dhibaatooyinka haysta shacabka masaakiinta ah ee ku nool gobolka Banaadir. Qodobka labaad ee shirqoolka xalay lagu dejiyey ayaa ah in madaxweyne Xasan Sheekh uu ku dhawaaqo qabashada shirkii golihii burburay, isagoo qorsheynaya inuu si gaar ah u casuumo maamulada Puntland iyo Jubbaland, tallaabadaas oo ah mid lagu doonayo in lagu kala qaybiyo isbahaysiga golaha mustaqbalka iyo mucaaradka ku midaysan badbaadinta dalka, waxaana la doonayaa in madaxtooyadu ay dhinac marto golahaas si ay u fashiliso kacdoonka siyaasadeed ee ka soo horjeeda damaca filla Soomaaliya. Waxaa intaas dheer in kooxda damjadiid ay go'aansadeen in la adeegsado hantida qaran ee laga dhacay iibka dhulalka danta guud iyo weliba dahab fara badan oo kayd ahaa, kuwaasoo loo qoondeeyey in lagu laaluusho xubno ka tirsan mucaaradka si loo iibsado damiirkooda loona wiiqo awoodda golaha kacdoonka wada, arrintaas oo muujinaysa heerka uu gaarsiisan yahay musuqmaasuqa iyo ku takrifalka awoodda dowladnimo. Ugu dambayntii, qorshahan guraacan ee xalay lagu maleegay madaxtooyada ayaa ah mid halis ku ah jiritaanka dowladnimada, waxaana guul iyo guuldarro midka ay noqon doonto ay ku xiran tahay sida ay golaha mustaqbalka ula macaamilaan dhagartaas iyo khiyaanadaas cusub ee uu soo maleegay duqa fadhiya filla Soomaaliya. Haddii aan si dhab ah u gorfayno dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee xalay ka bilowday madaxtooyada looga arrimiyo dalka, waxaa muuqata in kooxda damjadiid ay wajahayso culayskii ugu weynaa ee kaga yimid dhanka maamul goboleedyada iyo mucaaradka isbahaystay. Taasina waxay keentay inay soo rogaan qorshe cusub oo lagu tilmaami karo kii ugu halista badnaa ee abid soo mara siyaasadda Soomaaliya, waayo go'aanka ah in madaxweyne Xasan uu soo jeediyo qabashada shirkii horay u burburay ma ahan mid xal raadin ah, balse waa dabin siyaasadeed oo si qoto dheer looga soo shaqeeyey. Ujeedka ugu weyn ee laga leeyahayna waa in lagu kala dhantaalo midnimada golaha mustaqbalka oo ah awoodda kaliya ee maanta hor taagan damaca guracan ee filla Soomaaliya. Qorshahan ayaa dhigaya in si gaar ah loo beegsado madaxda Puntland iyo Jubbaland, iyadoo la isku dayayo in lagu sasabo ballanqaadyo been ah iyo heshiisyo hoose si looga soo saaro dalada mucaaradka, taasoo haddii ay hirgasho dhabarjab weyn ku noqon doonta halganka loogu jiro badbaadada dalka. Waxaa intaas dheer in kooxda damjadiid ay aaminsan yihiin in haddii ay ku guulaystaan inay shiishka u tuuraan golaha mustaqbalka ay markaas kadib si fudud u meel marsan karaan muddo kororsiga iyo boobka doorashada ee ay muddada dheer soo abaabulayeen. Waxaana xusid mudan in istiraatiijiyadan loo adeegsanayo dhaqaale xooggan oo laga soo xareeyey iibka dhulalka danta guud iyo kaydka dahabka ee qaranka, taasoo muujinaysa in madaxtooyadu ay u bareertay inay hantida ummadda u adeegsato duminta nidaamka dawliga ah iyo kala qaybinta shacabka Soomaaliyeed. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah, tolow golaha mustaqbalka ma ka feejigan yihiin dabinkan halista ah ee loo maleegayo, mise waxay ku dhici doonaan godka ay u qodeen kooxda damjadiid oo caan ku ah inay siyaasadda ku ciyaaraan khiyaano iyo dhabar ka toogasho? Waayo xogta aan helnay waxay caddaynaysaa in tallaabadan ay tahay mid quus ah oo looga gol leeyahay in lagu badbaadiyo maamulka sii liicaya ee fadhiya filla Soomaaliya, kaasoo hadda u muuqda mid godoon siyaasadeed galay kadib markii ay soo ifbaxday awoodda isbahaysiga mucaaradka. Dhinaca kale, marka aan eegno xaaladda amni iyo midda bulsho ee magaalada Muqdisho, waxaa soo baxaya sawir aad u fool xun oo ka dhashay go'aamada ka soo baxay kulankii saqbarkii xalay ee ka dhacay filla Soomaaliya, waayo amarka ah in waddooyinka caasimadda la xiro habeenka 24 bisha Diseembar ilaa 25 bisha Diseembar wuxuu caddayn buuxda u yahay in kooxda talada haysa aysan dan ka lahayn nolosha iyo duruufta shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir, balse ay kaliya danaynayaan sidii ay u hirgelin lahaayeen doorasho ku sheega ay shacabku u bixiyeen dhac iyo dil, taasoo la doonayo in qori caaradiis lagu meel mariyo. Xiritaanka waddooyinka ee xilligan xasaasiga ah ku soo aadaya ayaa ujeedkiisu yahay in shacabka la geliyo xabsi guri si aysan u dhigin banaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan boobka qaawan ee socda. Waxaana la doonayaa in sanduuqyada codbixinta ee la soo buuxiyey lagu dhex farsameeyo xarumaha degmooyinka, iyadoo shacabkuna ay guryahooda ku xaniban yihiin. Tallaabadan ayaa ah mid xadgudub ku ah xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda dhaqdhaqaaqa, waxayna horseedi kartaa kacdoon shacab oo aan la mahadin.
waxaa intaas sii dheer in dhaqaalaha loo adeegsanayo howlgalkan lagu caburinayo shacabka uu yahay mid laga soo dhacay hantida dadweynaha, iyadoo lacagtii dhulka iyo dahabka la boobay lagu bixinayo laaluushka ciidamada iyo ganacsatada qaar si ay u taageeraan mashruucan fashilmay. Doorashada dhac iyo dil oo hadda maraysa heer gabagabo ah ayaa ah mid aan haysan sharciyad iyo oggolaansho bulsho, waxaana la og yahay in kuraasta la boobayo loo qoondeeyey shakhsiyaad gaar ah oo daacad u ah damaca filla Soomaaliya. Taasina waxay halis gelinaysaa nidaamka dimuqraadiyadeed ee dalka iyo rajada laga qabay in la helo dowladnimo loo dhan yahay. Sidaas darteed waxaa waajib ku ah bulshada reer Muqdisho iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inay indhaha kala furaan oo ay ka dhiidhiyaan dulmigaas casriga ah ee lagu doonayo in lagu afduubo mustaqbalkooda. Waayo haddii qorshahan uu hirgalo, waxaa hubaal ah in dalku uu dib ugu laaban doono xilliyadii mugdiga iyo kalitalisnimada, waxaana mas'uuliyadda dhibaatadaas qaadi doona kooxda damjadiid ee go'aansaday inay dhiigga shacabka iyo hantida qaranka u isticmaalaan kursi jacayl iyo dano gaar ah.